gabadhii markay nafta ka baxdayna ee sheegeenna waa la soo saaray waxaana loo dhiibay maxamed xasan iyo macalin yuusuf waxay geeyeen meesha la yiraahdo beerta nabad sugidda ee deegaanley ee dugsiga tababarka ee nisa maalmahani waxaa socday muuqaalkaasi oo uu soo gudbinayo xogo dheeraad ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo intii uu joogay xarunta nisa faldambiyeed badan oo halkaasi ka dhacay uu kaga hadlayay dadkii faldambiyeedkaasi geystay. Ikraan Tahliil Faarax ayaa dilkeedu waxa uu dusha uu ka saaray ra'iisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Rooble Al-Cadaala wasiirka xigeenka warfaafinta Mahad Salaad oo ah agaasimaha hay'adda nisa iyo waliba Mahad Karatay. waxaa laga dhursugayay dhalinyaradii ciidamada nisa ahaa ee ka shaqeynayay hay'adda inay arintani ay wax ka dhaxaan isla markaasina ay sheegaan halka ay ku dambeysay gabadha Ikraan Tahliil. haddaba ila dhageyso qaar ka mid ah dhalinyaradaasi. dadka ee gabadhan qaba ee dilay oo maanta meelna aan loo maraynin waa farmaajo madaxweynaha ayaa amarka bixiyay isku afgarteen isaga iyo Fahad Yaasiin iyo kulanajiis in gabadhaas la khaarijiyo maadaama ay aragtay wararkii ay afartooda ku sheekaysan jireen waa in gabadhna la khaarijiyo leeyahay. gabadhii si kasta loo garaacaa leeyahay wax badan ba waxa weeye siday iyaga rabeen way ka waayeen. horta iyaga yaa dilay Fahad Yaasiin iyo kulana horta ka dhameystay markay ka dhameysteen ka tageen way uga tageen kuwii yaa leeyahay kama tajiya iyagu markay fuulfuuleen ka tageen ayaa kuwa kale ana runtii dishay kadib baa ciyaalkiina ay silciyeen waa ka waaydi akhrinayay labaday ku jiraan waxay dhahan wax walba soo midna gabadhii inay ugu dhimataa ka cabsay jaa markaas way u dhamaatay. gabadhii markay nafta ka baxdayna ee sheegeenna waa la soo saaray waxaana loo dhiibay maxamed xasan iyo macalin yuusuf waxay geeyeen meesha la yiraahdo beerta nabad sugidda ee deegaanley ee dugsiga tababarka ee nisa waa la wada yaqaana halkaas ayay Ikraan ku jirtaa meeshay ku jirto waa meeshaas waka in aan farinta aan idinla qaybsada ayaan rabaa waa ayaan daro weeye in ay madaxweynuhu ku lug leeyahay awal bashakigu waa jiray wayna ogtiin sababtana waxa garalaadin waa kuwii 3 milyan oo mataqaana banaanka soo dhigo oo 3 milyan qaata ya taas waxay cadeynaysaa inay iga dileen. ta labaad madaxweynuhu gorgortan uu galay meeqa gorgortan ayuu galay in mataqaana kiiskaas gabadhaas meel la mariyo maxay ku tusaysaa arrintii dhabtu waatana waxa weeye wasaabkooda afartooda waxay ku hadlayeen ayaa loo diray gabadhaas wax kale oo gabadha loo iyo kiisaska ay taqaanay intay joogtay mataqaana maxaa la yiraahdaa ay sheega engineer Riso ya dadkii shaqaaleysay oo la dilay oo baxay waxa soo dhan oo la isku aruuriyaa leeritan waana qarxinaysaa. waxaan idinku soo gudbinay wareysigii dheeraa ee qeybaha badan lahaa ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu bixiyay iyo waliba ehelada gabadha oo inta badan ku dhagnaa Fahad Yaasiin iyo waliba farmaajo oo xilligaasi villada joogay iyo dadkii Yaasiin Faray iyo kulanajiis dhammaan aad ay ula wada socoteen muuqaaladaasi halkan aan idin kula wadaageynay. haddaba inankan xogaha uu sheegayo ayaa waxa uu sheegay gabadhani inay ka agdhaweyd Fahad isla markaasina ay sira badan ay haysay haddana uu sheegay meedkeeda inuu yaalo xarunta nisa qayb ka mid ah waa sida isaga hadalkiisa uu ku sheegayo taasi oo uu sheegay in cadeymo badan inay ka hayaan laakiin xaqada jirta ayaa waxa ay tahay arintaasi inaysan suurtagal noqon karin iyada oo la og yahay gabadhan in xilli hore la waayay isla markaasina aysan suurtagal ahayn Fahad in uu sirahaasi u bixiyo isaga oo og gabadha meedkeeda inuu yaalo meel u dhow magaalada Muqdisho. Fahad Yaasiin waxa uu sii qaatay cadeymihii iyo wax kasta oo uu ku lug lahaa raadna sheegi lahaa oo arintaasi ku saabsan haddii maxkamad looga yeerana uu haysto cadeymahoodii iyo wax walba oo looga baahnaa. weerarkii lagu qaaday gurigiisa Mahad Salaad waxa uu doonayay ayaa la yiri macluumaad ku saabsan gabadhani inuu ka helo guriga Fahad balse wax macluumaad ah inaba ha yaraatee kama uusan soo helin halkaasi. wareysigii Fahad uu bixiyay ayaa waxa uu keenay muran badan ayuu dhaliyay kaasi oo inta badan dadka Soomaaliyeed ee siyaabo kala duwan uga hadlayeen wareysigaasi iyo waliba gabadha ehelada gabadha ayaa waxa ay ku eedeeyeen in dilka gabadhooda uu ka dambeeyay Fahad Yaasiin
iyo farmaajo isla markaasina ay hay-adda nisa ay ka rabaan gabadha in ay mag ka bixiyaan ama haddii kale ay keenaan caddaymo tusinayo gabadha halka ay ku maqan tahay. dadka Soomaaliyeed waxay aad isku weydiinayeen hooyadu la aragii aabuhu gabadha maxaa ku dhacay isaga oo la og yahay inuu yahay nin aqoon-yahan dhakhtar isla markaasina ku nool wadamada hormaray in uusan hal mar ka soo muuqan warbaahinta tan iyo markii uu Fahad Yaasiin uu soo bandhigay xogahan cusub ee sheegayo in gabadha ay ku maqan tahay Mahad Salaad isla markaasina dilkeeda ay geysteen ururka Al-Shabaab. inta badan hooyada dhashay gabadha waa Qaali Maxamuud Guhaad ayaa ka hadasha kiiska gabadheeda iyada oo ka dalbatay Fahad in uu ka dambeeyay dilka gabadheeda isla markaasina ay ka rabto in uu meel ugu sheego rag iyo ruux. inkasta oo Fahad uu sheegay in dilka gabadha uu ka dambeeyay Mahad Salaad isla markaasina ay fuliyeen ururka Al-Shabaab sida aad horay ula wada socoteen. haddaba xogaha tooska ay hadda aan helino ayaa waxa ay sheegayaan in kulamo goosgoos ah in u socdo hay-adda nisa kuwaasi oo doonayo inay soo bandhigaan xogo ka duwan kuwii uu soo bandhigay Fahad Yaasiin oo ku saabsan gudaha xarunta waxyaabaha hadda ka soconayo. caddaymo ayay hadda raadinayaan Horle iyo weliba dhalinyaro badan oo ka shaqeynaysay xarunta in ay waraysiya laga soo qaado isla markaasina bulshada lala wadaago taasi oo weliba sii marin habaabin doonto kiiska hadda meesha uu marayo. wajiyo badanna loo yeelay iyadoo horeyba loo ogaa in kiiskani la marin habaabiyey haddana looga sii darayo. xildhibaan Amiin Jeesow oo isaga laftiisa ay ka cabatay hooyada dhashay Ikraan oo horeyna ay u tiri isla markaana xitaa maalnimadii shalay ilaa iyo xalay ay ilahaydaan oo dacwooda ninkani anaga nama matalo ehelkana kamid ma aha ayaa xarunta baarlamaanka ka sheegay in guddi loo xil saaro guddi baaritaan caalami ah isla markaasina ka warbixiyo halka gabadha ay ku maqan tahay oo ay doonayaan inay ogaadaan geeri iyo nolol intaba. hay-adda nisana uu sheegay inay tahay hay-adda gacanta ku haysay kiiska isla markaasina ka dambeysay dilka Ikraan Tahliil. muran badan ayaa ka dhashay guud ahaan dadka Soomaaliyeed kiiskanna waa lagu kala qaybsamay iyada oo ninba dhan uu u fasiranayo. qaar ay leeyihiin gabadhani dilkeeda waxaa ka dambeeyay Fahad iyo Rooble Fahad iyo Andhaha iyo Mahad Salaad qaarna ay leeyihiin Rooble ayaa ka dambeeyay si gooni ah isla markaasina raggaasi ay u adeegsaday. qaarna waxay leeyihiin farmaajo villada iyo Fahad ayaa ka dambeeyay balse xaqiiqada jirta ilaah ayaa garanayo. sidiisaba qofka dhiigga muslimka ma qarsoomo maalin ayuuna soo shaac bixi doonaa haddii ay yiraahdo. muuqaalada sii shargaraya asxaabtiinana hala wadaaga xogo badan oo muhiim ah ayaynu idiin soo wadnaa halkana idinkula wadaagi doonaa saacad iyo daqiiqad ayuu warka usoo dhacayaa waana idiin soo gudbin doonaa haddii ay beedmo.